dugsi la'aantan docdanigu ban deeqay hooyada dembi kumaale deeqay hooyada dembi kumaalehe talilaliladha dadka aabbahaaba iigu dar aniga meelaha aadka xitaa dadka igu sii hadhay macnihii filinka dabadaba ma garanaysa dad baa jiray dee kusoo biirbiirayay oo xitaa qaar dee ka galeen face ka galeen inantii walaashii matalis oo kale runaantii sidee wuxuu jishay macnihii inay jirto oo waxaana ay hayso duruuftan ay markaa ka cabanaysay ay matalis inay markaa iyada hayso oo kale ayaad moodaysi isku filan oo kale markay tageen miyiga nin uu tagayo walaalkii mataliyo geel la iska jooga miyi jooga oo waranaya inantaan la soo tagay magaxan kale magaaladii oo waxaan doonayaa geel ka bixiso markaas yiri matanaad migi ka keentay magaalada wallahi ma la xasiisteen waa actor waa macni waa dadka aan hadana filinka didusha aan kaga soo darnay wallahi billahi de kulli waa iska kala xigba laakiin marka la soo eego heesta bal hooyada dambi kuma lahayd dadka aabaha waa igu daran de oo islaantu dawaatan inta la doonaysay inaan koox hibaaq deel rabti ana waan iga diidan marka waa odaygii ugu darnaa bal heesta ereeyadeedii bal iyar hada noo qad dugsi la'aantan docdanigu ban deeqay hooyada dembi kumaale deeqay hooyada dembi kumaalehe talilaliladha dadka aabbahaaba iigu dar marka waa isqusaynaysaa xildhibaan qaybtii kugu xiisaha badnayd ee filimku shakhsiyan maxay ahayd wallaahi xiisuhu waa fara badnaa oo dee wuxuu waa fara badan bay ahaayeen waxyaabaha igu xiisaha badnaa waxaa ka mid ahaa halkaa gabadhaan kuu sheegayo kale walaashii matalaysay isku filan iyo ekraan oo iyaguna markay miyiga tageen meel cidlaa dab iskaga shidanayo dab isku ooganayo iska kilib yaro ku dhex jiro iska sheekaysanayo heesa iska qaadqaaday macnihii qaybihii miyiga oo dhan hibaaqoyana de bartii hooyada meesheedii dhigtay oo aad islaan caadiba moodaysiyo naxariistii hooyanimadii marka way fara badnaayeen waana filin taxanaa runtii xalqad dhiibisay marka waa sidaa